هذه طيبة تزهو بالأمين أشرف الرسل إمام المتقين. يا أخا الأشواق كيف الملتقى برح الشوق قلوب العاشقين برح الشوق قلوب العاشقين. سورة التكاثر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. إلهي waxau idhi alhaakum waxa idin mashquuliyey attakaaثuru, yacni isu farasheegad ah xoolo iyo dad isugu farasheegataan ama isugu faantaan. xataa zurtum almaqaabir, waxa yani idin mashquuliyey isu farasheegadku wuxuu idin mashquuliyey xataa zurtum almaqaabir, ilaa a ka soo booqanayseen xabaalaha. kalaa sawfa taclamuun, yacni iska daaya markaa waxaa idin mashquuliyey oo faanfaankaas ah, yacni ka tagoo iska daaya ee wakhti dambe idin garan doontaan. uma kalaa sawfa taclamuun, intaa dabadeed yacni iska daaya faanfaanka ay isu faanfaanaysaan oo faraha iyo xoolaha ay isugu faanfaanaysaane ardan bay idin garan doontaan, yacni cawaaqibta umuuraha. kalaa low taclamuuna cilma alyaqiin, waxa dhab ah haddaad garan lahaydeen yani cilmi yaqiin ah, cilmi dhaba haddaad garan lahaydeen, latarawunna aljaxiim. low taclamuuna cilma alyaqiin, yani ay lama ishtagaltum bitakaaur, kumaydaan mashquusheen yacni faanfaanka xoolaha iyo tirada isugu faanaysaan kumaydaan mashquusheen. cilmi yaqiina haddaa garan lahaydeen kumaydaan mashquusheen. marka lowdu jawaabteedii way xadfan tahay, taqdiirkeedu waxay noqonaysaa ay lama alhaakum الtakaaur ama lama ishtagaltum bitakaaur. latarawunna aljaxiim, ay wallaahi latarawunna aragteenoo waa arki doontaan aljaxiima, naarta jaxiima la yidhaahdo. uma latarawunnaha, intaa dabadeed ilaahay baan ku dhaartay, latarawunnaha aragteenoo waa arki doontaan cayna alyaqiin, jaxiimo waxaa arki doontaan yacni aragti dhab ah ayaa arki doontaan. uma latus'alunna, intaa dabadeed ilaahay baan ku dhaartay, latus'alunna laydin weydiiye oo laydin weydiiye oo waa laydin weydiinayaa yowmaidin maalintaas can الnaciim, nicmooyinkii baa laydin weydiinaya, nicmadii ayaa laydin weydiinaya laydinku nicmeeyey. takaaurkan waxay yidhaahdeen culammadu waxaa laga tilmaamayaa waa faanka la ysugu faanayo xoolaha iyo tirada. caadatan dad badani waxay isugu faanaan farasheegad ay isu farasheeganaya, annagaa idinka badan iyo annagaa idinka xoolo badan iyo annagaa idinka tiro badan, taasay ku mashquulaan. waxaasina waxay wax tarayaan ma aha, waxaasina waxba tari maayaan. ilama iyo xabaalaha aa ka booqanayseen bay idin mashquuliyeen faanfaanka ay isu faanfaanaysaan. xabaalaha aa ka booqanayseen culamada qaar waxay u fasireen ilaa aa ka dhimanaysiin. oo qofku markuu dhinto dee xabaaluhu booqanaya, bimacnaa xabaashii baa la geynaya, waa lagu aasaya, wuxuu ka dhigan yahay inuu booqday. maxaa booqasho loo yidhi? waa lagu aasaya, waa lagaga tegayaa. dee laguma waarayo, xabaalaha lagu waari maayo, waa la yska soo saarayaayo qiyaamaa jira. marka kaannahu aaska xabaalaha lagu aasaya ziyaaro ay ka dhigan tahay, dadkii ay booqanayaan. marka cid booqdayna wuxuu u dhow yahay markaysagaa booqashada inuu ka noqdo, booqashada inuu ka noqdo ayuu u dhow yahay. marka waxaa laynoo tilmaamayaa qiyaama inuu jiro oo uu ka dambeeyo, halkaas aan lagu waarin. dadka qaar waxay yidhaahdaan, sida carabaha qaarkood oo kale waxay yidhaahdaan, dahaba ilaa mahwaahu alakhiir. ruuxu markuu dhinto bay waxay yidhaahdaan dadka qaarkood, dahaba ilaa mahwaahu alakhiir, hoygiisii ugu dembeeyey ayuu qabtay. ahlucilmigu waxay yidhahdeen cibaaradaa in la isticmaalo maaha.
waayo xabaashu hoygii ugu dambeeyey maaha. hoyga ugu dambeeyey ama waa janno ama waa naar. meeshan waa ziyaaro, waa la booqanaya, laakiin meel lagu waaraya ma aha. meesha lagu waaraya ama waa janno ama waa naar. marka hoygan waa laga dambeeyaa, waa lagu sii yara habeen dhaxaya isagana. sidii adduunyaduba habeen dhaxay u ahayd ayaa xabaaluhuna habeen dhax u yihiin. waxaa loo socdaayoo geedi loo yahay aakhiro, ya bacsi iyo qiyaamaa dambeeya. marka dee xabaalaha lagu waari maayo xataa zurtum lmaqaabir. bacdi kale waxay yidhaahdeen xataa zurtum lmaqaabir waxaa loo jeedaa ilaa xabaalaha aad booqateen oo dadkii dhintay ay isu tirsateen. oo waxay yidhahdeen dadka qaarkood baa isu faanay bay yidhaahdeen, ya markaasay annagaa idinka badan iyo annagaa idinka sharaf badnayn iyo yani markaa saasay isugu faaneen. hebel baa naga mida, hebel kalaa naga mida, hebel kalaa naga mida, ya markaasaa markii dambe markaysagaa kuwii dhintaa lasoo yani markaa iyagana la faalleeyey. markaasaa hebel oo dhinta annaga naga mid ahaa. kuwii dhintaa xataa lagu faanaya. marka taasaa laga tilmaamayaa yani xabaalaha booqasho lasoo booqanayo. laakiin labada weji waxa qawisan, ka hore ayaa qawisan. ka hore ayaa qawisan. cid dhimatay oo waxay ku qayb dhabantahay aan la ogayn janniya naar baa lagu faanayaa. waxaaba laga yaabaa ka lagu faanayaa inuu yahay mid mucadabo dee hoogay, ya ifka korkiisana waxaa dhici karta in lagu faano, ya waxa loogu faanayaana waxaa laga yaabaa inay tahay wax shar ah oo isagii xataa dhibaato ku ah, ya oo ciqaabta loogu siyaadinayo. tafaakhurka iyo faanfaankana marka horeba waa la diiday. bismi illaahi araxmaan araxiim. alhaakum atakaahur. alhaakum waxaa idin mashquuliyey attakaahuru isu farasheegad aa isu fara sheeganaysaan xagga xoolaha iyo xagga dadka mid walba oo isugu faanaysaan. kahradii baa laga keenay, waa tafaacul min alkahra. isu fara sheegad aa fara isugu faanaysaan baa idin mashquuliyey. annagaa idinka tiro badan, annagaa idinka xoolo badan. xataa zurtum lmaqaabir, ilamaa iyo aa ka soo booqanaysaan, ilamaa iyo aa ka soo booqanayseen xabaalaha ayay idin mashquulisay isu fara sheegadkaasi, oo bimacnaa aa ka dhimanaysaan. oo zurtum la yidhaahdo waxaa looga jeedaa bimacnaa tazuuruuna, ay xataa tazuuru lmaqaabir. maadi baa laga cabiray, waxaa se looga jeedaa mudaaric baa looga jeedaa. xataa tazuuru lmaqaabir macnuhu dhacay oo laga tilmaamayo ilaa aa ka dhimanaysaan bay idin mashquulisay. ama maadigeeda loo daayoo la yidhaahdo xataa zurtum lmaqaabira, ilamaa iyo aa ka soo booqateen xabaalaha oo aad tidhaahdeen bal kuwii dhintayna inoo tiriya. hebel baa naga mid ahaa oo sidan iyo sidan ahaa, hebel kalaa naga mid ahaa. waa dad dhintay oo xabaalan oo waxay ku qayb dhaban yihiin aan la ogeyn. miyaa la cadaabayaa, miyaa la janneeyey, yacni aan laga warqabin baa lagu faanaya. kalaa sawfa taclamuun. iska daaya mashquulka aa ku mashquulaysaan fara sheegadka iyo fara isugu faanka aa ku mashquulaysaan ka tago, iska daaya. waa radci. sawfa taclamuun, ar damba idin garan doontaan ama wakhti dambe idin garan doontaan, yacni caaqibada arrinkiiyo sida wax noqdaan. uma kalaa sawfa taclamuun. intaa dabadeed iska daaya fara sheegadka aa faraha isugu faanaysaan. yacni laa yanfac, wuxuu tarayaa ma jiro. waxna waa dhibayaayo dee faanku ma bannaana. weliba waxa lagu faanayaa markay noqoto wax xunna waa ka sii xag jirtaa, ya oo dad waxa weeye ahlu shara laga yaabaa in lagu faano. dad ahlu shar ah ayaa laga yaabaa in lagu faano. waxaa loogu faanayaana waa sharkaa daraaddii. dee taasina waxay noqonaysaa dembun calaa dembin, waa dembi dembi kor saaran. faankiibaa marka hore aan bannaanayn,
mar labaadka xumaantii in lagu faanaana meeshii waa ka imanaysa uma kalaa sawfa taclamuun intaa dabadeed ka aaloo iska daaya yacni mashquulkaa a ku mashquulaysaan ee a idin mashquulinayso yacni faankaas iyo isu fara sheegadku sawfa taclamuuna wakhti dambe idin garan doontaan kalaa low taclamuuna cilma alyaqiin tani ma tawkiid baa kalaa sawfa taclamuun uma kalaa sawfa taclamuun bacdu ahlicilmi waxay yidhahan waa tawkiid oo tii horun baa la adkaynaya bacdu ahlicilmina waxay yidhahaan macno cusub bay faa'iidaynaysaayo tawkiid hadday ahaan lahayd ziyaado laguma dareen haddana xarfu cadfi baa lagu daro uma lagu siyaadiyey mar haddii uma lagu daray tawkiid inaynay ahayn keliya ayaa laga qaadanaya macno cusub in lagu xambaaraa u asala oo maxay noqonaysaa sawfa taclamuuna wakhti dambe idin ogaan doontaanoo dee cinda nasci marka nafta laydinka siibaayaa ogaan doontaan ya uma kalaa sawfa taclamuuna wakhti dambe idin ogaan doontaanoo markaa xabaalaha gashaan baa ogaan doontaan markaa xabaalaha gashaan ayaa ogaan doontaan ama sawfa taclamuuna wakhti dambe idin ogaan doontaan ta dambeo yacni marka laydin soo saara ogaan doontaan kalaa low taclamuuna cilma alyaqiin waxa dhab ah oo xaqiiqo ah oo aan sugayaa sugis baa macnuhu u dhacaya low taclamuuna haddaa ogaan lahaydeen cilma alyaqiini yaqiin aqoon dhab ah aa ogaan lahaydeen aqoon dhab ah aa ogaan lahaydeen cawaaqibta umuurihii siday noqon doonaan ay lama ishtagaltum bitakaaur kumaydaan mashquusheen isu fara sheegad kumaydaan mashquusheen iyo fara isugu faan kumaydaan mashquusheen laakiin ogaan la'aan baa idiin sababtay latarawunna aljaxiim laamkaasi waa muwadi'atun lilqasam waxay u gogol dhigtaa dhaar waxaa loo jeedaa jawaab dhaareed bay u gogol dhigtaa ila dhaarta horteed baa la qadarayaay haddaan la sheegin dhaarta ama waa inay madkuur dhaartu tahay ama waa inay muqadaro tahay haddaan la sheeginna laamka hortii baa la qadaraya ay wabillaahi yo ilaahay baan ku dhaartay latarawunna marka waa muwadi'atun lijawaabi alqasam xoogaa tasaamux baa ku jira cibaarada ah waa muwadi'atun lilqasam latarawunna waa arki doontaan oo waa arki doontaan oo waa arki doontaan aljaxiima naarta jaxiima la yidhaahda arki doontaan nuunkaas waxaa la yidhahda nuunu tawkiid muhaqala baa la yidhahdaa waa nuunu tawkiid la adkeeyey maxaa lagu adkeeyey shadka la shaday baa lagu adkeeyey waayo waa nuun laban laaban waa laba jibbaaran yahay waxay ka dhigan tahay nuunu tawkiidku labuu u qaybsamaayo nuunu tawkiid mukhafafa oo waa nuun la reebay keliya lanasfacan binnaasiya laba kordhig baa loo qorayee tanwiin baa loo qoraye laakiin asalkeedu culammadu waxay yidhaahdeen tanwiintu ficilka ma gashee waa nuunu tawkiid mukhafafa waana innagii soo sheegnay laba mawdic keliya inuu qur'aanka kaga soo arooray walayakuunan min aلsaakiriin iyo lanasfacan binnaasiya nuunu tawkiid mukhafaf oo kale oo qiraa'aadka mashhuurkaa ku yimi ma jiro malaa qiraa'o shaadday sheegi jireen oo odhan jireen alqiya ayaa alqiyan yacni bacdi taabiciinta ka mida akhriyeen taas qur'aannimo loo akhrin maayo ee qur'aannimo labadaa mawdic keliya ugu soo arooray nuunu tawkiid mukhafafa rasmiga ha ku kedsoominoo hays odhan war waa tanwiine nuunu tawkiid maaha ya ee culammadu waxay isku waafaqsan yihiin nuunu tawkiid mukhafafa inuu yahay saasay isku waafaqsan yihiin nuunu tawkiidka musaqalkii isagu in badan buu qur'aanka ku yimi waa nuunkaa shidan ee lagu adkaynayo
waxay culammadu yidhaahdeen ficilka haddii nuunu tawkiid mukhafafa la geliyo waa kaa reeban keliye wuxuu ka dhigan yahay laba goor ficilka in la sheegay la nasfacan jiidnee oo jiidnee bay ka dhigantay mar keliya maaha nuunu tawkiidka markuu ka maran yahay waa jiidnee waa jiidaynaa marka ka mukhafafka a la geliyo waa laba goor bay ka dhigantay in lagu celiyey ka shadane musaqalka a marka la geliyana waa kan la tarawunna ku jiro oo kale waxay ka dhigan tahay ficilka in 3 goor la sheegay ka dhigan tahay culamada carabiyadu saasay sheegeen marka macnuhu wuxuu u dhacayaa la tarawunna aragteen oo waa arkaysaan aljaxiima naarta jaxiima la yidhahdo arkaysaan uma latarawunnaha intaa dabadeed ilaahay baan ku dhaartay ay billaahi ay uqsimu billaahi latarawunnaha aragteen oo waa arkaysaan cayna alyaqiin jaxiima arki doontaan haadu waxay u noqonaysaa jaxiima cayna alyaqiin yacni aragti yaqiin ahoo dhab a baa arki doontaan uma latus'alunna intaa dabadeed ilaahay baan ku dhaartay latus'alunna laydin weydiiye oo waa laydin weydiinayaa yowmaidin maalintaas a arkaysaan jaxiima can الnaciimi nicmadii laydin weydiiyey nicmadii laydinku nicmeeyey adduunyada markaad joogteen baa laydin weydiinayaa ma ka shukri naqdeen mise waa ka abaal ka darteen waxaa kala jiray culammadu yidhaahdeen cilmu اlyaqiin iyo caynulyaqiin iyo xaqulyaqiin cilmulyaqiin waa yaqiin dhab ahoo yacnii ruuxii inta loo sheegay si yaqiinoo hubaala ayuu shaygu rumeeyey yaqiintu waa hubaal yaquna almaau iyo yaqina almaau biyihii waa sugnaadeen baa loo isticmaalaa shakigu wuxuu iska leeyahay xoogaa yacni markaa walaac buu iska leeyahay oo shaygii isku qabanayo war saa ma tahay war ma aha war sidaa ma u rumaysaa war ma ka daysaa markaa taraddud baa ku jira shakiga yaqiintii waa maxay shaygii markuu hubsaday wuu ku sugnaanayaa qalbigii iyo niyaddii baa ku sugnaanaysa niyaddii ma taraddudayso ma noqnoqonayso niyaddii noqon maysee meel bay ku sugan tahay oo ay haysataa oo qofka muuminkii markii qiyaamada loo sheegay bacsi baa jiro waa laysa soo saarayaayoo geerida lagu waari maayo dee waa rumeeyey si markaa shaki iyo noqnoqod ka madran ayuu u yaqiinsan yahay oo niyaddiisu ugu sugan tahay iyo ictiqaadkiisu inuu qiyaama jiro laysa soo saarayo la soo bixinayo dadkoo la xisaabayo la abaal marinaayo oo janniya naar la kala gelinayo gaalkii waa isku hayaa ama munaafiqiyo wuxuu leeyahay warniyow ma jirtaa mise ma jirto ma rumaysaa mise waad iska daysaa saasuu u laba boglaynaya laakiin qofkii muuminka ahaa ictiqaadkiisii waa sugan yahay ila kelmadda yaqunaa laga keenayo yaqino oo sugnaanshaha ah yaqina almaau biyihii baa sugnaaday yaquna almaau biyihii waa sugnaadeen sabata wadaama hadda ma aragtaa marka ictiqaadkii baa sugnaanaya kelmadda yaqiinta marka hore macnaheedu waa kaas haddaba waxaa kala jira marna ruuxu wuxuu hayaa cilmi yaqiin ah marna wuxuu hayaa caynulyaqiin marna wuxuu hayaa xaqulyaqiin saddexda maxaa u kala dhexeeya laba suuraddan baa lagu sheegay ta saddexaadna waxaa lagu sheegay suuratulwaaqica aakhirkeedaa lagu sheegay wainahu laxaqu lyaqiin ina hada lahuwa xaqu lyaqiin marka cilmulyaqiinka ruuxu ma arag waxan laakiin war dhabaa loo sheegay warkiina waa rumaystay niyaddiisii baa ku sugan waa sidaa mu'miniintu hadda u ictiqaadsantay iyagoo qiyaamadii aan arag inay qiyaamadu jirto
maxay hayaan cilmulyaqiin bay hayaan aqoon yaqiin ah bay hayaan sabatana allahu calayha qiyaamadii marka la soo saaro qiyaamada ay arkaan markaana waxay hayaan naartiina ay arkaan caynulyaqiin bay hayaanoo ishooday ku arkeen ya waa caynulyaqiin xagga adduunyada aan ka tusaalayno masalan waxaa la maqlay yaqiinna loo rumaysan yahay beled masar la yidhaahdo inuu jiro maynaan arag innagu masar laakiin warka tawaaturka ee badan ee iska daba imanaya ee dadaan la koobi karin ay sheegeen ayaa markaa lagu rumaystay inay masar jirto akhbaaru naaskii baan markaa ka soo qaaday maka iyo madiine idinkuma tusaaleen nusuusta ku soo arooray beledkaa masar la yidhaahdaa inuu jiro ama magaalada qaahiro la yidhaahdaa inay jirto innagaan aragoo isha saarin haddana cilmulyaqiin baynu haynaa waayahay nin baa haddaba marka isagaa diyaaradii la martay madaarkeedu fadhiistay madaarkii qaahira ayuu fadhiistay in yar buu joogay ruuxaasi isaguna wuxuu hayaa caynulyaqiin buu hayaa oo haddii lagu asaraaro wuxuu leeyahy anaaba arkay war xidiga qubad ma maqashay buuhi markaasuu annagaabay nagu qubteen ya raggay ku soo daateen baaban ahaa cilmulyaqiin buu sheegtay mid kale beryuu ku noolaa oo u dhex malay oo sanawaad buu ku noolaa oo marba gees uga baxay kaasi wuxuu hayaa isagu xaqulyaqiin ya cilmulyaqiinki waa sii dhaafay marka saddexdaa martabo ayaa jira cilmulyaqiin iyo caynulyaqiin iyo xaqulyaqiin waxaa ilaahay inoo sheegayaa in caynulyaqiin markaa jaxiimo la arki doono oo jaxiimo dadku ma wada gelayaan ya caynulyaqiin bay markaa dadku ku wada arkayaanoo dhammaan waa arkayaan kuwa ruubtay ee iyagu galay ya ee kulkeedii ku gubtay dee iyagu xaqulyaqiinkii baabay hayaan soo maa waka uma latus'alunna yowmaidin can الnaciim maalintaa waxaa laydin su'aali doonaa nicmadaa laydin su'aali doonaa nebigu salى اllahu alayh wasalam maalin maalmaha ka mid ah ayuu goor gadiida gurigiisii ka soo baxay abubakar iyo cumarna isla xilligaasay guryahoodii iyaguna ka soo baxeen way kulmeen markaasuu nebigu weydiiye ku yidhi abubakar iyo cumar maxaa guryihii idinka soo saaray goortu waa gadiid markaasay yidhahdeen gaajo markaasay adiga maxaa kaa soo saaray gurigii markaasuu waxaa iga soo saaray kii idinka soo saaray ayaa anna iga soo saaray anna gaaja iga soo saartay hadda bal eeg adduunya inaynay qiimo lahayn nebi muxamed oo dadka ugu khayr badan ayaa goor gadiida gurigiisii gaaja ka soo saartay abubakar iyo cumar oo yacni nebiyada marka laga yimaado ummadda awaliinta iyo aakhiriintaba ugu khayr badan ummaddan oo keliya uguma khayr badna ee marka nebiye laga yimaado bacda alambiyaa insi iyo jin waxaa ugu khayr badan abubakar iyo cumar waayo ummatu muxamed waa ka khayr badantahay umamka kale oo dhan saxaabada nebi muxamedna sala allahu alayh wasalam asxaabta nebiyada kale oo dhan waa ka khayr badan yihin saxaabadii nebi muxamedna waxaa ugu fadli badnaa abubakar iyo cumar halkaa waxaa ka xasilaysaa in abubakar iyo cumar bacda alambiyaa insi iyo jin dhammaantood inay ugu fadli badnaayeen nebiyadoo qudhaa ka fadli badnaa marka iyagana guryahoodii waxaa ka soo saaray abubakar iyo cumar gaajaa ka soo saartay
hadday sharaf tahay adduunyadu oo cidda la siiyey ay tahay cid la maamuusay oo ilaahay agtiisa sharaf ku leh yacni nebigi iyo abubakar iyo cumar baa la siin lahaa ya laqad jaca fiiha alanbiyaa'u karaamatan waqad shabicat fiiha butuunu albahaa'imi mid adduunyada ka warramayo gabyaaya wuxuu yidhi adduunyadu ya yacni gudaheeda waxaa ku gaajooday nebiyo waxaa loo soo naqliyaa xoolaha markaa caloolahooduna waa ku dhergeen waxaa kaloo loo soo naqliyaa wa luxuumu da'ni turmaa lilkiraabi hilibka idahana iyadoo eyda loo tuuraayo ya sida looga dhergey ay eydu cunayaan ayaa nebiyadiina ku gaajoodeen marka dee adduunyadii waa daar imtixaan wax in lagu qiimeeyo xoolaha ma aha in layska daba rido yacni looga tago yacni diinta looga tago adduunye raadis ya yacni ma aha dad fara badani maanta waxay isugu tuurayaan mahaaligta iyo halaagyada si ay markaa quud yar u helaan iyo xoolo yar ama muslim waxay kula dagaalamayaan oo xoolo ku dhacayaan waxna ku dilayaan dhiigna ku daadinayaan inay xoolo yar helaan ya waxaasina dee wax lagu waaraya ma waa adduunyo yar oo maalmo kooban la joogaayo waa adduunyo yar oo daleel ah ya waxaa laga dooranayaa naar in loo galo ayaa loo maraya waxa marka ay arkayaan baa dad badani ku xisaabtamayaan waa israaceen nebiga sala allahu alayh wasalam iyo abubakar iyo cumar nin saxaabiya ayay gurigiisii tageen saxaabigii ayaa loo sheegay dabeedna wuxuu yidhi maanta marti wanaagsan baa ii joogta middi buu qaata neef buu soo gowracay waa loo soo kariyey waa marti soora waa cuneen nebiga sala allahu alayh wasalam iyo abubakar iyo cumar markay cuneen dabadeed buu nebigu wuxuu idhi latus'alunna yowmaidin can الnaciim latus'alunna can الnaciim nicmadan waa laydin weydiin doonaa baa nebigu yidhi aayadda ayuu markaa tilmaamaya hadda gaajaa gurigii ka soo saartay martisoor baa loogu loogay oo loogu qalay martisoor baa lagu karaameeyo wax lagu siiyey waxay markaa ka qaadayeen bay ka cuneen tii buu tilmaamayaa tan in maalinta qiyaame layna weydiin doono waa laydin weydiin doonaa nicmadan bal hadda ka warran innagoo markaysaga hadhiyo habeen dhergayna oo saa wax isugu gurayna ya hilib baa loo keenaye waxaa laga yaabaa intaasoo noocoo kala duwan markaysagaa in la cuno ya oo la yidhaahdo waxaa weeye markaa sida yacni casuumadaha markaysagaa loo sameeyo oo la yidhahdo 10 noocoo kala dambeeyo weeyi ya waa nooca haddana waa kan haddana waa kan haddana waa kan ya marka shukrigiina waxaa laga yaabaa in la ilaawo marka nicamka ilaahay waa in lagu shukriyaa oo laga shukri naqaa halkaa